buurtaan jooga waxyaalo badan oo la yaab laan arkay waxyaalo la yaab kale waxaan arkay nin sheekaynaya ninkaas wuxuu leeyahay niyow beri baa waxa la yiri nin baa wuxuu yiri baa la yiri nin baa wuxuu ku yiri baa la yiri hebelow maadaa yiri wixii hebel ugu yiri anigu hadalka ma oran karo oranna maaye ninkii yiri sidoo yiri ha u yiraahdo waxaanan oran maxaad u tiri oo yiri kuma ilaahdeen anoo kii la yaabo ma mid kale qabsaday wuxuu yiri diraacada xumayd ee buufiska xumayga xumaaday baan mid xun oo cali leeyahay tuulo xun oo halkaas ay suracno kabad xun buu igeeyo ma jin xun buu i qaado boosh xun baan fadhiisanayo mid xun oo joogtay baa shaax xun oo khafiif ah noo karisay oo hargab xun baan ka qaaday oo farmeesh xun baan tagay mid xun oo joogay baan kiniin xun ka qaato ilaahay way igu caafiyay warkanaaba la qaatay waa hadii ilaahay caafimaad laga helay wixii xumaayo lagu biskooday waa taay ka rogo laba saar haddana waxyaabo kale aad haysaa waxyaalaha la yaab kale aan ku arkay isli waxa kamid ah sheeko la yiraahdo afmishaarnimo intii dalku burburay qof walba aftahan buu noqday maalin dhaweed baan ilaa cad dhageystay oday baa ka hadlaya oo wuxuu ka hadlayaa arrimaha Soomaaliya waxaan la yaabay qaabka dhaqanka u burburay wuxuu ku leeyahay haddaanu nahay odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo aqoon-yahanka muwaadiniinta ee mutadawiciinta ee muraaqibiinta annagoo tixgelinayna qadarinayna xushmaynayna ixtiraamayna ahmiyad iyo dadaal badanna siinayna xeer dhaqanka soo jireenka biyo kama dhibcaanka ee laba ilaawaanka kana shidaal qaadanayna qodobka 6aad fardadiisa 4aad ajandaha ku xusan ama amiirta iyo agreementka iyo afyafta iyo qawaaniinta iyo shuruucda iyo dastuurka iyo axdiga ku meel gaarka dhinacyo badanna wax ka fiirinayna waxaan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaynaa inay masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda ka tashato xamaasadda iyo xiisadda iyo colaadana joojiso miiskii wada hadalkana dib ugu soo laabato afiya oo iskhilaafsan buu ka hadlayaa anoo kii la yaaban oo le war muxuu soo sidaayay bahabar ka dabaadas waxa tiri haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa beesha caalamka sida qaramada midoobay midowga Yurub jaamacadda Carabta urur goboleedka IGAD midowga Afrika UN ka hay'adaha xuquuqlisaanka kuwa deeqda bixiyay United Nations waxaan u cadeynaynaa u qeexaynaa u bayaaminaynaa u soo bandhigaynaa xaqi iyo xuquuqdii iyo qismigii iyo qaybtii aan ku lahayn masraxa siyaasadeed ee Soomaaliya in miiska naloo saaro shuruud la'aan marka gabayo fara badan baa horta Soomaaliya ka tiriyay dagaal sokeeye dawlad la'aan faqri iyo colaad sixir barar cadaalad xumo dil iyo dhac boob iyo bililiqo jawr dulmi tahriib barakac cunsuriyad qabyaalad xansuuq musuqmaasuq jahli iyo burcadbadeednimo horta inta markaan arkay baan wax horta taa ka gabayda horeysiisa intuu wax loo baahan yahay in laga hadlo bulshada laga wacyigeliyo taa waxa ka sii daran maamul goboleedyo Puntland iyo Udubland iyo SSC iyo Elsunna iyo Xidin iyo Xeeb iyo Galmudug iyo Waax iyo Waadi iyo Jubbaland iyo Jubbaraas iyo Jubba Jasiira dooxada Jubba iyo Jubba Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Asaan iyo Raas Casayr iyo Lacagasayr iyo Mareen State iyo Ceelbuur State iyo Golool Mudug State iyo Hanna Calayso State inta markii aan arkay wax la yaalo waxaan ku hadlo ayaan garan waayay meel baash ka bilaabo